عردينا هلا إسيو ورفع عاصماتا ورفع عاصماتا بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن وناكسن داوديال مeel kasta dafaa caalamka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka Rays TV xarunta saddexe ee magaalada Muqdisho laba barnaamijka waxa idin la socodsiisan igu ah Bahja Cabdullaahi Salaad isla toddobaadkan barnaamijka waxa marti igu ah mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ugu horeynta toor kusoo dhawo barnaamijka caafimaadka Rays TV xarunta saddexe ee magaalada Muqdisho waa mahadsan tahay Bahjo waa ku dhawahay TV-ga mahadsanid Titore toddobaadkan barnaamijka adaa martiin ugu isla markaana waxaan joognaa xafiiskaaga isbitaalka jaamacadda Soomaaliya background-kaaga wax yar adoo inoo sheegaya intaanan u guda garin barnaamijka mahadsanid magacayga horta waxaa la yiraahdaa Dr. Maxamed Nuur Xiirey waxaan ka howlgalaa isbitaalka jaamacadda Soomaaliya waxaan wax ku bartay dalka gudihiisa isla jaamacaddan Soomaaliya in muddo aan shaqadan caafimaadka ku guda jiray hadda waxaan isbitaalka ugu shaqeeyaa dhakhtar caruureed daawadayaal toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Maxamed Nuur Xiirey waa dhakhtar ka howlgala isbitaalka jaamacadda waa dhakhtarka cudurrada caruurta Dr. isla markaana toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku lafa guri doonaa cudurka jadeecada waxay tahay su'aasha ugu horeysa waxay tahay waa maxay jadeeca mahadsanid Bahjo jadeecada waxa keeno xanuunada waxay kamid tahay xanuunada ay virusku ay sababaan marka jadeecada waxay ku badan tahay ilmaha yaryarka ah iyo dadka waaweyn qaarkood jadeecada waxay kamid tahay xanuunada aadka u faafo oo sida dhaqsiyaha leh ku gudbi kara waa virus ku dhaca neef mareenka respiratory system ayaa la yiraahdaa marka ilmaha da'doodu ay yar tahay iyo dadka aadka u waaweyn labadaasba waa ku dhacaan ayaa mararka qaarkood dadka aan talaal ka qaadan Titore maadaama sheegtay jadeecada caruurta aadka u yaryar in ay saameyso ma laga yaabaa cunug shalay dhasho kale ama xal dhasho kale in ay saameyso way saameyn kartaa oo waxa la yiraahdaa xanuunkani dadka oo riskiga ugu jiro waxa kamid ah dadka immunity-geedu uu daciif ka yahay dadka marka ilmaha yaryarka almost immuunkoodu waa daciif haddii hooyadu ay qabtay jadeecada maybe inuu markaas oo ka qaado Dr. haddaba measleska ama jadeecada inta badan maxaa cause gareeya ama sababa jadeecada waxaa sababo virus la yiraahdo measles virus wuxuu ka mid yahay noocyada virusyada asaga nooc la yiraahdo RNA virus oo single strain marka viruskaas ayaa sababo waxyaabaha lagu kala qaadan wax kamid ah neefsashada iyo qufaca hindhisyada kaleeto qofka qaba hadii uu kugu hindhiso ama uu kugu qufaco ama aad taabatid taabashadaas aad taabatay oo wajigaaga gaarsiisid indhaha iyo sanka iyo afka ay gaarto sidaas ayaad ku qaadaysaa viruska haddaba Dr. maxay tahay calaamadaha inta badan caruurta ka soo muuqan karaan caruurta qaba measleska ama jadeecada horta waxa la yiraahdaa waqti ay soo kala maraan marxalado kala duwan ay soo maraan viruskan markuu cunug ku dhaco ilaa iyo 10 ilaa iyo 14 bari wax calaamadaha kama soo muuqdaan kadib calaamadahaas maxaa ula jeedaa incubation period xilli huris ayaa la dhahaa incubation period ka xilligaas
10 ilaa iyo 14 beri inta u dhaxayso waa xilliga ay jirkiisa ku jiri karaan cunuga asoo affected ah haddana xanuunkii gudbin kara oosan jirinin wax calaamad ah oo ka muuqanayso markii 14kaas beri la soo dhaafo ka bacdi ayaa waxa bilaawdo in ay ka soo muuqdaan calaamadihii sida in qandho ay qabato oo kaleeto qufac waxa la dhahaa dry cough oo sameeyo hindhisyo indhaha oo guduuta oo maaragtay ilin ay ka imaanayso conjunctiva la yiraahdaa coupled spot wax la yiraahdo canka meeshiisaas gudaha ah nabar dhexda ka cad oo ka soo muuqanayo carabkii oo strawberry oo kaada guduud noqda wajiga qaybtiisa koreeto dhegta ilaa intaan rash oo ka soo muuqdo ka bacdi rashkaas oo hoos u soo dego ilaa oo lugaha oo aado waji kale taa jiro oo la dhaho recovery phase kaas waxa waaye 4 ilaa 3 maalmood markii rashku uu ku yaalo ka bacdi ayaa waxa bilaawda recovery phase-ka markaas ka bacdi waxa imaanayo in maaragtay cunugii ama uu ka caafimaado ama maaragtay complicationada kale ay ka yimaadaan doctor waxa ka dhawaajisay incubation-ka ama xilli huuriska cudurka jadeecada in la arko 10 to 14 days oo kale calaamadaha iyo qandhada hore marka ugu horeyso waxa soo bilaabda cunuga qandhada soo bilaabayso markaas qandhada lagu arko isla markiiba waxa ugu xigsanayo in mucosa isha inuu guduuto ilin ay ka imaato oo qufaco cunuga way isku xigaan marka calaamadaha marka uu 14 maalin ka soo gudbo on spot waxa bilaabanayo day 1 ilaa day 3 waxa imaanayo in qandho qufac iyo mucosa isha oo guduuta ishii oo ilin ay iska imaato oo aan wax malax iyo wasaq fish aan lahayn haddaba caruurta sida u qaadi karaan cudurka measleska ama jadeecada horta waxa fiican marka horeeto ilmaha markii lagu arko xaaladaas in ciyaalka kala laga ilaaliyo xanuunkan waxa waaye waxa la dhahaa air drop hawada oo soo raaca marka cunugii oo qufaco kaleeto qufacaas wax yar oo droplet la yiraahdo ku jiro dhibca yar oo ilma aragta ah dhibcahaas yarkaahi viruskiya ku ay yihiin oo hawada soo raacay marka hindhisadoo kaleeto ama qufaco kaleeto hawadaas ay soo raacaan waxa imaanayso viruskaas inuu 2 saacadood oo hawada ku noolaa karo marka area-da cunugaas oo joogo in ilmaha kala laga ilaaliyaa fiican haddii area-daas cunuga uu ku sugan yahay oo soo galo cunug caafimaad qaba oo aan talaalnayn oo qaadaya xanuunka ilaan hawadii uu qaadana hawadaas afka iyo sanka iyo oo ka qaatay galayso direct hadduu ugu qufaco cunuga oo qufaca labada cunug oo isku dhow ay direct qufaca oo dhex maro qufacaas wuxuu gaarsiinaa in hawadii ay toos ugu dhacdo cantuuftis yaryarka ah oo la arki karinin hindhisyadoo kaleeta lamida cunuga qaba surface-kiisa oogadiisa haddii cunuga kaleeto oo taabto oo gacantiisii oo affected ah oo ama isha iska xogo ama oo sanka afka meelahaas oo iska xogo ayadana waxay imaanayso inuu xanuunkii qaado cunugaas doctor waxa ka dhawaajisay cudurka measleska ama jadeecada taabashada kale waxyaabahaas in lagu kala qaado haddaba cunug cudurka qaba kuwa ka bad qaba oo haddana talaal aanan lahayn haddii same house ama hal qol isla seexdaan caruurtaas ma laga yaabaa inuu affect gareeyo ama ay ku dhacdo cudurka jadeecada qolkiiba 90 oo affect gareynaya waayo cunuga difaaciisa hadiiba uusan aad u xooganayn sida caadiga ah oo la yaqaano ilmaha difaacoodu oo yar yahay difaaciisa marka hadduusan xooganayn waxa imaanayso inuu qaado xanuunkii oo maaragtay sidaas oo affected ku noqdo sidoo kale maadaama cudurkan jadeecada si fudud loogu kala qaadi karo cunug hore ugu dhacay measles ama jadeecada ma laga yaabaa mar labaad inuu affect gareeyo ama ay ku dhacdo cudurka inta badan lama arag
way jirtaa inay kusoo noqon kartaa, laakiin 95% weli lama arkinin cunug measles ay ku dhacday. Jirka waxaa jirto waxyaabo uu u samaysan yahay oo wixii soo gala inuu aqoonsi ka samaysto, difaac oo kasii samaysto oo mar labaad waxaas aysan kusoo noqon karin, sida virusyada oo kaleeto. Immunity-ga wuxuu ka samaysanaa difaac, immune-ka markaas uu soo galo oo arkabo immune-ka ka hortaga. Marka saas darteed waxaa la dhahaa jadeecadu kuma soo noqnoqoto ilmaha. qof ay mar ku dhacday inta badan kuma soo noqoto, ma biin marmar ila arko. Doctor, maadaama aad tahay dhakhtar inta badan la tacaala xanuunada carruurta aadka u yaryar, weli ma la kulantay cunug jadeeco hore ugu dhacday mar labaad inuu affect gareeyo ama ay ku dhacdo? Maya, ma arkin weli cunug hore jadeeca ugu dhacday la leeyahay oo jadeeco mar labaad ay hayso weli ma arkin. Laakiin kiisaska qaar waxaa ma filaa in mar labaad ay affect gareyso post measles oo kale, cunug hore jadeeco ugu dhacday mar labaad uu dib kale uu affect gareynayo. Way dhici kartaa, laakiin ma badno. Haddaba doctor, waa maxay risk factors ka cudurka jadeecada? Risk factor-ka uu badan yahay, waxaa la yiraahdaa waxa risk ugu jiro dadka aan talaalka lahayn oo aan hore loo talaalin, ilmaha yaryar ha ahaadaan, kuwa dadka waaweyn ha ahaadaan, oo xilligii talaalka xilliga oo jadeecadu ay jirto safar inuu galo kaleeto qofkaas aan talaalka lahayn riski ugu jira in jadeeca ay ku dhacdo. Waxaa jiro ilmaha sida la yaqaano immunity-goodu inta badan waa daciif, marka waxaa la dhahaa immunocompromised groupka ah. waxaa kaloo jiro ilmaha ay da'doodu yar tahay, dadka waaweynka oo elder aadka u weyn 60 iyo above halkaas ka maray. waxaa kaloo risk ugu jiro maxaa la yiraahdaa, waxaa risk ugu jiro elder carruurta iyo dadka waaweyn. Immunocompromised groupka la yiraahdo ilmaha yaryarka ah oo da'doodu ay aadka u yar tahay, hooyada uurka leh oo kaleeto uu ku dhici karaa. gruubyadaas ayaa risk factor la yiraahdaa. Doctor, waxaa ka dhawaajisay cudurka measleska dadka oo safarka inta badan meelaha malaariyada ay ku badanto oo kale, webiyada, dhulka saxaraha oo kale, meelahaas in ay saameynayso dadkaas cudurka measleska. Ma laga yaabaa qof weligiis aanan ku dhicin cudurka jadeecada oo kale haddii uu aado meelaha kaneecada oo kale ay ku badanto oo kale, meelaha webiyada, meelaha harooyinka biyaha fadhiistaan oo kale, haddii safar oo yacni halkaas uu aado kale in ay affect gareyso measleska? Horta xanuunkan oo measleska la yiraahdo kaneeca iyo wax saameyna kuma lahan ayda. Webi iyo kaneeca iyo ma saameeyaan, laakiin asaga xilli uu dhacaa sanadka inta badan waqti uu dhacaa. waqtigaas oo maaragtay kan measleska uu jiro, haddii qofkani asoon talaal hore u lahayn oo tago meel outbreak oo ka jiro oo measles ay ka dilaacday, la kulmo qof oo measleskii qaba, qofkaas way saameynaysaa. dadkaas ma waxaa ula jeedaa carruurta aadka u yaryar ama dadka waaweyn? intaba dad kuwa yaryarkaana way saameynaysaa, kuwa waaweyn way saameynayaan. waayo qofkan haddii marba difaaciisu uu yaryahay, haddii la yiro immunocompromised waaye, qofkan inuu difaaciisu yaryahay. teeda kale waxaa jiro vitamin A deficiency. haddii qofkan vitamin A-du ay ku yar tahay way saameynayaan ilmaha. haddii oo immunity-giisu oo daciif yahayna way saameynaysaa. qofka weyn oo aan talaalka qabinin haddana difaaciisu uusan xoogganayn, hadduu la kulmo exposure-kaas oo ku dhaco waxa waaye baashi way qabanaysaa measleska. Ka war doctor, carruurtaas aadka u yaryar ama dadka waaweyn haddii vitamin A-gooda kale uu high u yahay ama uu ku filan yahay, welina uunan qaadan vaccine-ka measleska, ma ku dhici kartaa dadka? haddii mar immunity-giisa uu ku filan yahay, waxaa jirto marmar ay
ku dhacdo laakiin aysan kasoo muuqanaynin. xanuunkii jirkiisa uu soo galay haddana jirkiiya iska caabin ku sameeyey ma kasoo muuqanayaan calaamadihii. marna way ku dhici kartaa oo way kasoo muuqanayaan, marna ayadoo ku dhacday aysan kasoo muuqanaynin. haddii marka difaaciisu uu strong yahay jirkaaba iska caabin ku sameynaa oo xanuunku ma qabanayo oo ma lagu arkayo calaamadihii measleska. ka waran Titore, hooyada uurka oo kale sidee u saameynaysaa xanuunkan ama cudurka measleska? hooyada uurka leh waxay ku jirtaa groupka oo immunocompromised kala dhaho. marka xilligaas ay xamliga tahay oo uurka ay leedahay hormonal change fara badan ayaa ku dhacay jirkeeda, process badan ka socdo, difaaceedu aad u yaraanaya. markaas difaaceedu oo yaraado, hooyadani haddaysan horey vaccinated u ahayn oo ku dhaca xanuunka, ayadaas oo ku dhacayo marka wuxuu ku sii sababi karaa complication fara badan, sida in ilmihii oo dhicis ah oo waqtigoodii dhameysanin inay dhasho kaleeto, ilmihii inuu caloosheeda uu ku dhinto oo kaleeto, maxaa la yiraahdaa ilmo oo low pathway miisaankooda uu aad u yar yahay oo miisaankii intii loogu talagalay uusan dhameyn inay dhasho oo kaleeto. complicationadaas ayadana ka sii yimaado. Titore, waxaa ii sheegtay hooyada uurka leh oo kale in ay affect gareynayso cudurka measleska. haddana waxaa sheegtay ilmaha hooyada uurka ay ku sido kale low pathway inay noqonayso premature birth. haddaba hooyada stage-ka ugu dambeeya xilliga dhalmada haddii ay ku jirto, isla waqtigaas hooyadana ay qabto cudurka measleska, cunuga la filanayo inuu dhasho, cunugaas ma wuxuu noqon doonaa qof qaba cudurka measleska? marba haddii oo xilliga ugu dambeysto oo third trimester-ka ay ku jirto, ilmaha saameyn way ku yeelataa laakiin aad uma xoogana. saameynta ay ku sameyso ilmaha waxaa laga yaabaa in maaragtay intrauterine fetal death oo kaleeto ay sababto, laakiin low pathway ma ku sababayso oo xilligii koriinshaha cunugan uu korayay uu kasoo gudbay. marka waa suurtagal cunugu inuu asagoo oo maaragtay markaas hooyadu ay qabto haddoo dhasho inuu asagana oo positive la noqdo habarta, ileen direct contact ay leeyihiin hooyadii cunugana immuunkiisa uu yaryahay. haddaba Titore, sidee looga hortagi karaa cudurka measleska ama jadeecada? sida ugu wanaagsan waxay tahay in marka ugu horeysa la tallaalo ilmaha, kabacdi tallaalka haddii la siiyo ilmahana markii la arko xilliga outbreak uu jiro kaleeto jadeecadu magaalada ay ka jirto, in ilmaha la kala ilaaliyo, cunugii lagaga shakiyo in jadeeca ay hayso amaba lagu arko in ilmaha kaleeto laga ilaaliyo. maadaama ayadu tahay in air dropskaas lagu kala qaadayo oo quficii, hindhisyadii, taabashadii intaba lagu kala qaadayo, ilmuhu ma yaqaanaan inay iska ilaaliyaan, laakiin waalidka waxaa loo baahan yahay inay gaab u sameeyaan oo cunugana qol gooniya lagu haayo, qofka cunugaas la tacaamula iyo ilmahan kaleeto xitaa la kala ilaaliyo. Titore, maadaama tahay dhakhtar la tacaalaya xanuunada ku dhaco caruurta aadka u yaryar, weli ma la kulantay cases oo measles ama cudurka jadeecada oo waxyaaba complicationka inta badan haddaad hore usoo sheegto kale dehydrationka iyo waxyaabahaas oo kale, pneumonia kale qofkan inuu noqdo cunuga, complication waxyaaba badan iskugu jiraan dehydrationka, pneumoniada, waxyaabahaas oo kale ma la kulantay? horta jadeecada aan dib wax yar ugu laabano, jadeecada ayada ilmaha ayadu ma disho. waxa ay ilmuhu dhibaatada ay ka soo gaartahay waa markii aan cunugan waxay ku sababaysaa qandho tiro badan, qandhadaas tirada badan waxay keenaysaa dehydration. marka wuxuu u baahan yahay in rehydration loo sameeyo. haddaan marka fuuq celintaas loo sameynin cunuga, waxa waaye waa khatarta meeshaas ay ka bilaabanaysaa. waxaa kaloo jiro secondary bacterial infection, pneumoniada kamid ah.
pneumoniada aniga dhowr jeer aan la kulmay ilmo jadeeco ay kusoo dhacday oo develop gareeyay pneumoniada marka ayada markaas cunugu hadiiba xilliga horeeto rehydration aan loo sameynin oo cunuga qandhada aan lagala dagaalamin oo maaragtay marka ugu horeysa 6 maalin oo ugu horeysa markii la gaaro hada antibiotic la iska siisiyaa si pneumonia iyo waxyaabahaas ay soo imaanin marka waxa cunugu inta badan oo u dhimanayo waa dehydration ku imaaday pneumonia oo aan lagala tacaalin most of them dadka waxay aaminsan yihiinba in maaragtay amba baashaan jadeecada aan la siininba daawo waa sax daawooyin toos ah ma lahan laakiin waxaa la sameeyaa oo ay leedahay in lagala dagaalamo complicationada imaan doona complicationada marka pneumoniada kamid ah diarrhea kamid ah haddii marka cunugii aan la siinin daawooyinkii safiiro noqonaa xaalad adag oo galaa waa arkay pneumonia waxaa iigu darnaay aniga oon arko cunug diarrhea ay ku sababtay oo aada u soo fuuq baxay markii dambeeto malnutrition noqday malnutrition oo develop gareeyay waqtiga nagu qaadatay in maaragtay aan ka soo saarno dehydrationka oo rehydration aan u sameyno kabacdi waxaa naga develop gareeyay malnutritionkii aan markaas kadib santarada xarumahan oo lagu siiyo malnutritionka ilmaha ah la geeyo aan u refer garaynay oo meeshaas lagu soo baaniyay dib recovery inuu kusoo sameeyo kusoo qaato doctore waxaad ka dhawaajisay complicationada cudurka jadeecada in ay qayb ka tahay dehydrationka kale iyo pneumoniada inta badan caseska adiga aad la tacaasho ma jiraan case develop gareeyay encephalitis ama cunuga maskaxdiisa ama brainkiisa kale in uu damage u gaaro maya wili ma arkin aniga oo encephalitis ee cunug markaas develop gareeyay encephalitiska inta badan waxa waaye mararka intooda badan ma dhaco oo waxa waaye waxaa ku badan ilmaha ay aadka u develop gareeyaan pneumoniada iyo dehydrationka iyo maxaa la dhahay otitis media waxa la yiraahdo in dhigta caabuq tympanic membrane-kii inuu bararo oo maaragtay infection meeshaas oo kaga bilowdo oo ilmaha qaarkood marka ilmahaas oo tympanic membrane-kii oo caabuq ka qaaday oo kuwaasa waxaa laga yaabaa haddaan daaweyn fiican aysan helinin encephalitis inuu ayakuna uu ka aado marka inta badan weli ma aanan arkinin encephalitis laakiin pneumonia iyo dehydration malnutrition gruubyadaas waa arkay doctor wax ka dhawaajisay caruurta qaba cudurka jadeecada in ay develop gareeyaan otitis media oo kale ama ear infection sidoo u saameyn karaan dhigta maadaama cunugan inta badan calaamadiisa uu qayb ka ah horena aad ugu dhawaajisay qandho zaid ah iyo waxyaabo kale soo marka dhigta iyo jadeecada maxaa iska gal waxaa iska galayo oo waxaa imaanayo qufac kaf tira badan marka cunugii qufacaas wuxuu sameynayaa in dhigtii oo damage oo ku sameeyo waxaa imaanaya caburkaas markuu yimaado sanka caburka ka dhacaa iyo wuxuu saameynayaa dhigta marka quficii iyo caburkii waxay sameynayaan in tympanic membrane-kii oo effect garoobo sida caadiga dhigta iyo sanka iyo afka way isku xiran yihiin related way marka saas darteed ay ku develop gareynayaan waxyaabaha bakteeriyooyinka oo sabab ay ka mid tahay in complication ay ku yimaadaan pneumoniada iyo otitis media waxyaabaha la socda oo jadeecadu ay keento qayb ka yahay doctor haddaba cudurka jadeecada ma leeyahay vaccination ama talaal la siiyo caruurta ha
waxa ugu fiican oo la sameeyo hadday ka hortag noqoto waxa waaye talaalka ilmaha la talaalo iyo kuwa aan la talaalin waxa aad ugu badan yahay kuwa aan la talaalin oo 95% kuwa la talaalay kuma dhaco haddii oo ayako incubation periodkii ku jira mararka qaarkood waxaa jiro ilmo la talaalay ayako incubation periodkii ku jira 72 hours ka gadaal talaalka la sameeyo wuu kasoo bixi doonaa cunugan in jadeecadii haddii xilli huriskii ay ku jirtay way kasoo muuqanaysaa laakiin wuu ka saqiran yahay cunuga aan la talaalin. doctor inta badan hooyooyinka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin cunuga haddii uu qabo ama develop gareeyay cudurka jadeecada hooyooyinka aad ay u neceb yihiin in ay ilmaha ay talaalaan talaalka waxay ka aaminsan yihiin qalad. horta waa way jirtaa oo dadka anaga talaalka ma jeclo laakiin hadda xoogaa waxaa moodaa wacyigelin badan oo la sameeyay xoogaa inay fahmayaan faa'iidada uu talaalku leeyahay talaalka faa'iidooyin badan oo ilmaha u leeyahay waxaan ku talin lahay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaashaba in ilmahooda ay talaalaan. doctor inta badan waxaa jiro hooyooyin Soomaaliyeed talaalkii wacyigelinta inta badan waxa sameeyo dadka MCA-jada ka shaqeeyo kale hooyada marka dhacdo ilmahaagan rabaa in aan ka talaalo cudurka measleska ama jadeecada kale waxay leeyihiin talaalka laftirkiisa asaga ayaaba keena cudurka waxyaabo badan waxaa jiro oo qaladaad iyo wacyigelin la'aan haddaba guntiyo gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay doctor cudurka measleska ama jadeecada sidee ayaa loo daweyn karaa? horta xanuunadan ay virusku sababaan xanuunada virusku sababo daawooyin toos ah oo la siiyaa ma jiro waxa ugu fiican oo la sameeyo daawada ugu fiican waa rehydration in loo sameeyo qandhada laga jibiyo fuuqbaxana laga ilaaliyo cunugan complication-kana laga ilaaliyo oo maaragtay sida xanuunadan kaleeto bacterial infection-ka encephalitis-ka otitis media cataractiga waxyaabahaas oo dhan in maaragtay laga sameeyo cataractiga vitamin A u baahan yihiin ilmaha si indhaha dhaawac uusan uga gaarin in vitamin A la siiyo cunugan antibiotic hordhac waa loo siiyaa rehydration fluid in la siiyo oo laga ilaaliyo fuuqbax biyo badan in la siiyo waxaa jiro ilmaha markii oo jadeecadu ay ku dhacdo waxaa imaado kabla disbot waxa la yiraahdo oral trash ku dhacay afkii af burbur inuu ku yimaado ilmaha af burburkaas wuxuu ku sababayaa in abateedka uu ka go'o cunuga marka waxaa la siiyaa astatin in la siiyo si af burburka uga yaraado antibiotic la siiyo maxaa tirahdaa anti-cough iyo antibiotic intaas hadaa u samaysid maxaa tire la yiraahdo rehydration u samaysid cunugaaga intoisa badan 95% uu ka kacaa xanuunkan marka ilmaha waxay u baahan yihiin rehydration hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed dhamaantood waxaan kula talinayaa in maaragtay cunuga markay ku arkaan xanuunkan jadeecada inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhakhtar ugu xiriiraan si loogala tacaalo waxay dhibaatada dambe oo imaan lahayd looga hortago. doctor inta badan caruurta ay affect gareysay cudurka jadeecada inta badan oral touch oo kale marka imaado kale cunuga afka wax ma ka qaadan karo haddana isbitaaladka waxaa la sameeyaa ilmaha in NGTO loo xiro kale si halkaas cunuga loogu qoodiyo haddii ay caano ahaa lahayd bushaale iyo biyo oo kale halkaas in laga siiyo inta badan hooyooyinkana ma jeclo waxyaabahaas oo kale sababta cunuga loogu gelinayo NGTO-ka haddana hooyada ay fikir khaldan ay ka aaminsan tahay hooyada iyo aabaha kale wacyigelin nooc oo kala siisaan
maadaama adna tahay dhakhtarka inta badan la tacaalayo cudurada ku dhaca caruurta aadka u yaryar ma jiraan cases oo complication badan leh oo haddana isbitaalka as inpatient ahaan loo seexiyay waa jiifinaha horta waxay u baahan yihiin tube-kan waxaa loo gelinayo sababta loo gelinayo waa for feeding in lagu quudiyo cunugan inuu malnutrition oo noqdo ama secondary bacterial infection ay timaado complicationadan ay yimaadaan waxaa sabab u ah nutrition xumo markii afku uu bukado carabkii dhamxanigii faruuriyihii ay bukadaan cunugan inuu wax cunuu iska diidaa ilaan afkii waa dhaawac waxay u baahan tahay marka hooyooyinku iyo aabayaashu way jecel yihiin ubadkooda si marka loogaga dhaadhiciyo waa in loo sharaxaa haddii cunuga sidaan lagu eegto waxa ka imaan doona haddii tubadan la geliyo faa'iidada uu helayo loo sheego la yiraahdo cunugaaga nafaqa darriya ku imaanayso xanuuno kala ku dhacayo difaaciisa hoos u sii dhacayo la yiraahdo cunuga xataa waxay sababi kartaa dhimasho waxa ugu badan oo ilmuhu ay u dhintaan waa hawaaye feeding xumo nafaqa darrida ay u dhimanayaan marka hooyadan haddii la yiraahdo cunugaagii dhimashada way ka cabsanayaan haddii la yiraahdo cunugaagii wuxuu u baahan yahay si uu u noolaado in la geliyo tubo laga nafaqeeyo haddii aan tubadaas la gelinina waxaa imaan karta inuu dhinto ay aqbalayaan ka waran tutor haddii hooyada iyo aabaha tube-ka inaan ogolan kaliya ay rabaan rehydration in loo sameeyo infusion oo kale waxyaabahaas falaboyn cunuga kaliya in la siiyo marna rehydrationku waxbuu ku taraa marna waxbuu ku taraayo cunugu markuu fuuqbax kaliya ku siman yahay rehydration oo u samaysid appetite-kiisa oo iska soo noqonaa laakiin cunug dhuuntii iyo afkii ay bukadeen rehydration dee biyo cunto ma noqdaan cunto u baahan yahay cunuga in la siiyo si marka uu u noolaado biyo kaliya kuma noolaanaye waa in la siiyo tube feeding halkaas loogaga sameeyo marka anaga waxaan kula talinaa inta badan oon ka dhaadhicina ayaga waxay ka cabsadaan tubo haddii cunugaaga sanka laga geliya armuu kaa dhintaa laakiin dhimashada meesha ay ka fiirinayaan kama jirtay waxay ka jirtaa meesha ay ayaku u haystaan inay u fiican tahay marka waxaan u sheegnaa in aysan tubadan wax dhiba aysan u keenaynin oo xataa wax saameyn badan aysan ku lahayn kaliya cunugoodu afkan inta uu kaga raysanayo loo sameynayo quudin halkaas loogaga sameynayo inta badanna way naga aqbalaan haddaba tutoore ilaa iyo imisa intee in la eg ayay ku qaadan kartaa cunugan maadaama afka unan waxba uu ka qaadan karin haddana tube feeding loo sameynayo haddii cunugani uusan malnutrition ka aadin oo kaliya oo u baahan yahay feeding bas 3 to 4 days inay ku tahay 3 ilaa 4 maalmood markaa siisid daaweyntiina aa u samaysid recovery ku sameynaa 3 maalin kadib afkiisa marka maalin 3 maalin maalinka saddexaad waxaan uga bilaabnaaba inaa ayo soo tubada ku jirta afka aan wax ka siino caadi afka markaas uga qaato lagu kalsoonaado inuu wixii ku qaadanayo dan tubada maalinka afraad waa ka saar tutor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal muhiim ah tusaale ahaan hooyada haddii ay deganto kale baadiyaha vaccination ana laga aqoon ama talaal meesha hooyada ay deganto kale cunuga weligiis ma laga talaalin jadeecadana way ku dhacday cunugan wax daawo loo sameeyna ma jiro cunugas complication ama dhibaatooyin intee in la eg ayuu la kulmi karaa waxaan maleynaa waxaa aragtaa dad badan oo magaalada maraayo oo indhala qaarkood waxaa sababay indhala-aanta nabar uga dhacay maahane waxa waaye complicationadii oo mesliska dad badan oo indhala-aan ay ku riday qaarkood baadiyaha laga keeno qaarna magaalada laga keeno kiisas adiga aan la kulantan yaa jiro waxaan u maleynayaa inaan hal cunug inaan kala kulmayaan u maleynayaa cunugas ilaa iyo imse jir ayuu ahaa 4 sano 5 sano miyaa meelaha soo jiray weliba wuu saqirnaay hal ilay ka saameysaba asaga dadka qaar ay labada indhood bay ka saameysaa oo indhala-aan
sidaas ku noqda. doctor guntiyo gabagabada waxaan isla soo gaarnay barnaamijka caafimaadka Rais TV xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. toddobaadkan waxaan nasiib u yeelatay in aad barnaamijka Rais TV aad inagala qayb qaadato. haddaba waa maxay wacyigelinta dhanka bulshada kaaga aadan aad farin hawada halkan ugu mari lahayd bulshada iyo dadka inta badan ku xiran TV-ga Rais TV wacyigelinta u gudbin lahayd maxay tahay? waa mahadsan tahay Bahjo, adiga iyo TV-ga iyo kaameramanka intaba. waxaa jiro dhaqamo oo Soomaalideena ay leeyihiin oo maaragtay ay kula tacaamulaan jadeecada, sida inaysan aaminsanayn in daawo la siiyo kaleeto, waxyaabo la marmariyo iyo waxyaabo la saara iyo waxaas oo dhan ay sameeyaan. marka aniga as dhakhtar ahaan waxaan dhihi lahay aabayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ilmihiina talaalku ilmaha faa'iido u leeyahay. teeda kaleeto ilmihii markii aad ku aragtiin jadeecadii dhakhtarka la aada, ilmaha kala ilaaliya si maaragtay ilmuhu aysan idinkaga qaadin kuwa kaleeto aysan u wada gaarin. waxaan ku talinaa marka ugu dambeyn in hooyo kasta iyo aabbo kasta ee Soomaaliyeed oo siiyo cunugiisa talaalka si cunugiisa uu uga badbaado dhibaatada jadeecada. doctor sidoo kale waxaa jiro caruur aad u fara badan oo hooyada isla markaas ay arkayso cunugan inuu develop gareynayo calaamadaha measleska, qandho zaidna uu hayaa isla waqtigaas hooyada cunugu waxa ku haysa guriga 3 maalmood 4 maalmood kadib ay hooyada waxay soo gaarsiinaysaa isbitaalka cunuga. wacyigelin noocee ah ayaad waalidiintaas aad halkan ugu gudbin lahayd? waxaan leeyahay ha ku haynina ilmaha guryaha. inaad guriga ku haysatiin ilmaha waxay ka fiican oo ka wanaagsan cunugaagiina uga caafimaad badan inaad isbitaalka geysid. isbitaalka hadduu geeyo haddii jadeeca ay haysana waa lala tacaamulayaa sida ugu wanaagsan. haddii aysan jadeeca hayninna wixii kale qandhadan iyo waxyaabahan sababay baa lagala tacaamulaa. sida ugu wanaagsan waxay tahay hooyooyinku ilmuhu ma xamili karaan qandhada tirada badan. qandhadu ayadaa dhibaatooyin kaleeto ay ilmaha u sii sababtaa. marka cunuga marba haddii aad ku aragtid qandho iyo qufac iyo waxyaabahaas hadaa ku aragtid ha ku haysanin guriga, isbitaalka la aad si loo caawiyo cunugaaga. sidoo kale waxaa jirto doctor hooyooyinka inta badan cunuga markay xanuun ku arkaan oo kale ama uu jiran yahay isbitaalaad badan ay la marmaraan. laga yaabo hooyada inta isbitaalaadkaas badan ee cunuga iska daba wareejinayso cunuga meel xun inuu ku baxo. way jiraan, waaba aragnayba ilmo badan oo meelo badan kala duwan inta la geeyay xanuuno kala sii develop gareeyay waa aragnay. sida wanaagsan waxay tahay hal dhakhtar cunugaagu inuu yeesho. hadduu xanuunsado dhakhtarkaas aa u geysid xaaladiisa asaga oo la socdo. dhakhtarku haddii markaas uu u arko inuu wax ka qaban karinin cunugaaga asagaa qofka uga roon, dhakhtar kaleeto uga roon asaa kuu diri doono. laakiin adigu intaa maanta u geysid biri haddana dhakhtar kale hala aadin. waxaa jiro hooyooyinka iyo intooda badan waxay sameeyaan maanta waxaa arkaysaa hadda maalin dhexdaasa waxaa isbitaalka noogu yimid hooyo iyo ayeeyo isla socdo cunugu yaro watay. markay ugu yaraato waxay soo mareen ilaa iyo dhowr iyo 10 isbitaal cunugaas oo taariikhda hal maalin u dhaxayso. prescriptionada warqadaha dhakhtarka uu daawooyinka ugu soo qoray markii aan fiirinay maalina u dhaxayso labada dhakhtar. maalina xanuunkii kuma bogsoonayo, qandhada xitaa laga yaabaa inaysan uga jabinin. marka ilmaha dhibaato xoogana ugu jirto. waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed ilmihiina waxaadan ugu jirtaa in aad ugu sintaan dhakhtarka. dhakhtarkiisa gaarka ah inaa ugu sintaan.
haddii markaas dhakhtarku uu wax ka qaban waayo dhakhtar kaleeto oo markaas uga aqoon badan asaga ha u diro, laakiin maanta dhakhtar u geey, biri dhakhtar u geey, biri dambe dhakhtar u geey, cunugaad iskaga dilaysaa. sidoo kale doctor waxaa jiro hooyooyinka inta badan waxay aaminsan yihiin daawo dhaqameed cunuga calaamadihii measleska hooyada waa ujeeda inuu develop gareynayo inta iska dib loo wareejinayso waxyaabahan daawo dhaqameedka cunuga waxa waaye waa dhees saacada kadib waa aragnaa inta badan waxa waaye mareer iyo waxaasay ka daba wareegaan. mareerka anaga horta dadkii hore oo way isticmaali jireen lama yaqaano waxa saxda oo saameynta saxda uu ku leeyahay. waxyaabahan daawo dhireedka oo aad ka daba wareegaysaan hooyo iska dhaafa, la xiriira dhakhtarka markaas. daawo dhireedka si saxa ma u lahan effect la og yahay waxaan aa u isticmaalaysaan oo mareerka iyo waxyaabahan kaleeto aa isticmaalaysaan effect sax ah kuma lahan xanuunkan oo maanta la taaban karo. dhaqaatiirtu idinkama diidana waxaan daaweyn kara, laakiin waxay idinka diidan yihiin waxay tahay wax waqtiga ka dhuminaya cunuga oo ku sababayo heer dhimasho inuu gaaro. marka si cunugaagii uu u badbaado hooyo iyo aabe, markaad ku aragtid xanuunka sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtarkaaga la gaar oo dhakhtar caruureed ama xarunta markaas kuugu dhow ama dhakhtarka caruurta oo cunugaagu ku xiran yahay la gaar. asaga caawimaad intii ilaahay karaankiisa uu ka dhigo uu ka caawinayaa, cunugaaguna wuu ku badbaadaa insha Allah. doctor mahadsantahay Bahjo, soo dhawaa. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka caafimaadka Rays TV xarunta dhexe magaalada Muqdisho. laba barnaamijka waxaa idinla socodsiisan anigoo ah Bahjo Cabdullaahi Salaad. isla toddobaadkan barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Dr. Maxamed Nuur Xiirey, waa dhakhtar ka howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya. intaan dib dambe u kulmi doono barnaamijkan kiisa xigaan idinku dhaafo sida ayuu nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala